جمعية السعادة الخيرية وانت بدن كشقيسة arrimaha khayriga ee gobolka Saraar ayaa waxay maanta ku gubeen duleedka magaalada Caynaba kutub Quraanka Kariimka oo go'go'day oo ay ka soo ururiyeen masaajidada malcaamadaha iyo waliba xaafadaha kala duwan ee magaalada Caynaba waxaana ugu horeyn baalkaasi ka hadlay gudoomiyaha Jimciyadda Saacada Al-Khayriya Raxmaan Cabdiraxmaan Maxamed oo ka warantay kutubtan ay ku gubeen magaalada Caynaba iyo waliba dayactir balaaran ay ku sameeyeen kutub kale oo tiro badan waana kan gudoomiyaha Jimciyadda Saacada Al-Khayriya oo faahfaahinaysa alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah halkan waxa weeye waxaan joognaa meesha waxaan hadalnahay Jimciyadda Saacada Al-Khayriya waxaan maanta wadnaa mashruuci cinaayatul masaahif al-Qur'aan al-Kariim marka maxay tahay magaalada Caynaba oo dhan ayaa laga soo ururiyay masaahiftan maxay tahay masaajidada ab malcaamadaha dhan meel xaafadaha meel kasto ay maaragtay ku dayacan tahay kutubi ayaan maaragtay ka soo ururinay hadaan nahay Jimciyadda Saacada Al-Khayriya marka waxaan ugu talagalnay mashruucan inuu ballaadho shaqeeyo dadkana maaragtay waxaan ku boorinaynaa inuu baaq ugu diranay in sidaas oo kale uga shaqeeyaan maxay tahay marka xitaa tuulooyinka ayaan ka soo qaadnay haday tahay og baan ka soo qaadnay haddana wax laga soo wada wali maxay tahay qaar la dayactirayo wax laga soo wada mago marka maxay tahay sidaasaan marka insha Allah taala uga shaqeynayna kutubta dadka muslimiinta waxaan ugu baaqanay in sidaas oo kale kitaabka u ilaaliyaan oo maaragtay ay u dayactiraan dhamaan masaajidada iyo guryaha iyo maxay tahay shakhs kasto muslina in uu maaragtay ku dadaalo oo maaragtay ka shaqeeyo sidoo kitaabka Ilaahay u dayactir lahaa ayaan ugu baaqaynaa ku boorinaynaa anaguna sidoo kale wixii maaragtay sidoo kalena aad nagala qayb qaadataan wixii maaragtay mashruucaas oo kale aad nagala qayb qaadataan Jimciyadda Saacada Al-Khayriya waxay ka shaqeysaa hawlo badan oo isku jira maxay tahay masaahifta cinaayat masaahif al-Qur'aan al-Kariim iyo maxay tahay nadaafada masaajidada iyo maxay tahay oo kale waxaan ka shaqeynaa dadka jilicsan sida agoomaha iyo dadka maaragtay danyarta ayaan maaragtay ka shaqeynaa